سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، روح مسلم كأه حلوب أهيه وواجب كأه حالتك الصئين دين تيسا إلى عليه هدو علي سين يهدو فرح سين هدو دقال سين يهدو نبت كجو هدي عد للظلميو iyo hadii aan la dulmin xaaladihi soo dhan inuu san shariicada rabbi ka bixin tabaaraka wa taala hayla rabbigan wuxuu yiri war dadka muuminiinta ah ilaahay iyo rasuulkiisa hortooda ha kala hormarina hadal iyo ficil toon asuga iyaga wixii lagu xukumo qaado ha kugu kharaaraato culays iyo dhib ha kugu noqoto male marka xilli ruuxa muslimka la dhihi uu xanaaqsan yahayo uu aar gudanayaa oo xuduud xidha ma laho wuxuu doonuu samayn karaa la waxyaabaha ka dhacaya adduunka meel badan meeshana ka dhacay qaraxyadan iyo dhiigan uu la iska jiirayo meelaha caamka ee targetka laga dhiganayo waa arin u baahan ruuxa muslimka ah inuu ogaado sharcan ma jihaad ba oo markaa wuxuu ka mudan yahay inaad taageerto mise waa takhriib iyo kharibid oo markaa kaaga baahan inaad iska fogeyso arinta markaad ka jawaabayso ama doonayso inaad ogaato hawadaadiya saad jeceshahay ha u noqonin yaana dad badan oo maanta joogay taqriiban waxa ayaga agtooda muqarrarka ka ah ay ku qanacsan yihiin baa kala muhiimsan hadaad 100 aayadood u keento ama 100 xadiis u keento waxa doontaba adigu akhri qanaacadiisu meel bay u taalaa kaasina waxa weeyaan waa qoliyaha rabbi yiri tabaaraka wa taala waman yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a waxa doonta akhri لكن روح مسلم كا وحلا دونيا إنه حق أود بعسين وحي هدو بارن كرنا إنه بارده حديك لا تينو أدلة القرآن كأي السنة دا إيو مسألة أنت ولا النقضة عدة وسلية مركا وحبيك أجا فايدين كرتا وحوق الشجان إنه كوكان على الدنيا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بعده إنك مركا نوع عاس حديد لما الله ملها إله الدين كيس تبارك وتعالى نبي محمد دينتي لغو سو دجي تو كلو ميل كو قرسون انغو ما نقانو لكن هدو يحيى كتاب كان انه هور يالا اي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم سننكي الصحاح يا مسانيد كو قران اي عملكي الصحابه يا السلف كي كتبتو اي قران كتب الاثار هدي هلكا شريعه لغا راديو انت ان غرانيناي wax weeyaan wax xiriir lama laha diintii nabi maxamed lagu soo dajiyay salawaatu rabbi wa salaam alayhi way garan marsan tahay hadaad adigu u xamaasaysan tahay mas'ala kale way hadaad adigu jecesho hawadaadu raacda mas'ala kale way laakiin midaan doonay inaan ku ta'kiidiyo waxay tahay haba yaraatee shariicadii nabi maxamed sida ma qabto la kitaab wala sunna dhowr qodob baan doonayaa waqtigu ma saabaxayo inaan dul maro waarinta tilmaamay waa mid quraanka kariimka rabbigeen tabaaraka wa taala wuxuu noogu tilmaamay haddii muslimiin iyo gaala isku dhex jiraan gaaladaasina gaala dagaalkoodu inuu yahay ay yihiin oo xarbiyiin ah laakiin ahlul iimaan waxa jira aan la garanaynin oo ku dhex qarsoon Allah tabaaraka wa taala waa diiday gaalada in la weeraro bal gaalo dhan ma wada ah waaba gaaladii xaramka haysatayba waa gaaladii nabi maxamed ka saartay maka ee ka eriday
وقالدي نبي محمد لا دغالنتay صلوات ربي وسلام عليه وقالدي وديday isagoo umraysan inuu beedka guto umradiis kuwii nooca ahaa baa rabbi wuxuu leeyahay hadaynan ku dhex jiri lahayn rag iyo dumar aydan garanaynin oo mu'miniin oo iimaankooda qarsanaya mustadcafiin ah hadayna kuwaasi ku dhex jiri lahayn waa idin ku fasixi lahayn dagaalkooda وانا عذاب لهين بربي تبارك وتعالى محل قوضة يعني انت اللي يدين كوفا الصحة بعد قراء لهيدين او اللين لهيدين او قبصل لهيدين لكن محل يدين علي النقطة او دقال كها قادين كلابتا محل الله بنايا مسلم كاسي قال كحربك كل حجري قرصون ايا ديكي صلى الى لنا بالله عليكم افير صدق سيدا ديك مسلم كو الهي اكتي سوغوي wax walbana kala weeye ee sida maanta loo fududeysto sidaas daraadeed meelaha muslimiintu hatta haduu jihaadku sharciya cidda aad la dagaalamaysan ay tahay gaalkii la dagaalan lagu yiro dagaalkiisu ku fasaxay hatta fi hadii alhala ma banaana meelaha noocaas oo kale oo muslimiinta dhiigoodu ku daadan karaan oo dad kale oo farabadan oo abriye aan dambi lahayn ay ku daadan karaan ma banaana inaad weerarto بنص الآية سيداس درادت فلكو وفل أن دين تحرير للهين قضب كلمات علماء المسلمين قالوا ذو النوعيو قال حربي بالي دا دقال بانا قال دحية ساقونا ميشو نجهلو نبت بادين ماي أنا قنا ميشان كهلا بتبادين ماي نوعنا waxa la yiraahdaa dhimmi baa la yiraahdaa iyo dawladda islaamku ku hoos nool yahay oo raciyadu kamid yahay gaalna waxa la yiraahdaa muahad baa la yiraahdaa isagiyo dawladdiisa iyo dawladda muslimka baa waxa ka dhaxeeya xabad joojin iyo nabad ku wada noolaansho midna musta'man baa la yiraahdaayo dawladda muslimka isaga iyo dawladdiisa ama asaga iyo gaalada waxa dhex maray ballan ah in la isnabad geliyo la wada noolaado gaalka dhiigiisu bannaan yahay waa ka ugu horeeyo kaliyo xarbiga ah intan kale oo dhan dhiigoodu ma bannaana dhimmiga muahadka iyo musta'manka su'aashu waxay tahay marka inaad ahdi ku jirto ballan ku jirto ballantaana aadan uga bixi karin cidda aad kula jirto maxaa lagu garanayaa علماء المسلمين تكتب تفقه مركز تكون نقطة بل آثارتي الصحابة مركز لقول نقطة وحصوب حي أو تلماميا قال كألد قال لما يصير قال كوكالة دحية وحير أو تلمان أما إشارة أفهم أدين أو كفهمي كروين أدنبت جليا سينا يسو حدو أركو تينا أو آمنو سيدانا كوغوي مادو أمام بولي هاي مدلي كرتد ليجي سنة مدارين كرتد وحير أو كفهمي بقى حتى علماء القاركود وحيليه أضاد قال إذا كرد حيا هداد فرط عرك أو تاكتود صار هذا السجينة أت صار هذا وأمام باتسيسي بمعنى وحوي عهدي إيا بلم من كسيه وأنت هدو فهمه أو يسوسو كاتيبه بلم بوكوشي مدلي كرتد بل وحير أنت حتى كسير فعهدك إيا بلنتو كسوكنانيس علماء المعاصرين تمان تنول وحي ليه في زوينك دولتها لقا قاتو إيا إقامتها اللي قد الجنادة وضمضوضة إيا إناد كمي تهي مواطن وطنك حق له دوكومنتيجي سهايستاي وحي كمي تهي بل كبع علوس تهي كوي هوري عهدك إيا بلنك كتوسي تشريبي كعلوس تهي ساس دراديد وبلن إيا عهدي آلقش markay safaaradu fiisada ku soo siinayso hadii la og yahay inaad wadanka dib u geysanayso laguma siinayo xaqiiqo jirta waa maxaa lagu siinaya waxa lagu siinaya wadanka inaad tagto ka danaysato intaad joogtana laga nabad galo sidaas fiisada la isku siiya iqaamadana la isku siiya saas daradeed waa ahdi iyo ballan way ninkii marka wadan ku gala fiisa ku gala ama iqaamo ku leh ama kamid abad dadka raciyadiisa kamid ah asaga oo magaca huwan oo marada huwan oo amniga ku hoos nool oo iyaga u muujinaya inuu ballantii ilaalinayo
haddana inuu ku khayaamaayo oo weeraro oo uu dilo oo uu laayo oo uu qarxiyo diinta islaamka ka mid maaha bal waa cahdi iyo ballan la jabiyey wey nabigeennuna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ciddii ruux dhiiggiisa ammaan siiya kadibna dila anigu beri baan ka ahay xataa ka la dilaya gaalba ha ahaado waxaa kaloo nabigeennu yidhi sal alay wasalam cid uu ballan kula jiro oo gaal ah ruuxii dila jannada carafteeda heli maayo ciddii ruux ballan uu kula jiro gaal ah dila isagoo ballantii ku jira wakhtigiisii iyo xilliguu xalaasha ahaana aysan ahayn ilaahay jannada waa ka xarimay ayib ballan baad ku jirtaa cahdi baad ku jirtaa qaanuunkoodii iyo nidaamkoodii baad huwan tahay amnigoodii baad ku hoos nooshahay waxaa laga yaabaa inay carruuri kuu degan tahay waxaa laga yaabaa inaad ganacsi ku haysato waxaa laga yaabaa ammaankaasi ciddii ku dulminaysa inaad maxaakimtooda iyo nidaamyadooda isaga celiso oo uu ku ximaayeeyo ku ilaaliyo intaasoo dhan intaad gudato baa waxaad doonaysaa haddana in lagu yidhaahdo ka hoos tuso waxaad gaadhsiin karta gaadhsii shareecadee weeye shareecadaas waa shareecadii duurka ma aha shareecadii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma aha shareecadii nebi maxamed laba mid baa kuu furan allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay haddaad cahdi iyo ballan aad dadkuula jirtay ka baqdo inay kugu khayaamaan khayaanadooda khayaanaha kaga jawaabinee ballantooda u tuur si aad adiga iyo iyagu u siman tihiin dukumentiga sii jinsiyadooda sii fiisadooda ka bax iqaamadooda ka bax bannaanka isdhig markaa kadib waxaad samaynayso aday kuu taallaa laakiin tuugaysi shareecadu ma taqaano tuugaysi shareecadu ma taqaano mana aha jihaad sharci shareecadii nebi maxamedna meel looga heli maayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kaloo saddexeeya dhacdooyinka noocan ah miisaanka shareecada marka la saaro sharka ka dhalanayaa 100 goor ka badan haddayba faa'iida ku jirto waxay keenayaan waa haddii oo muslimiinta dhulka degan iyo qayrkood maxay dhibaato u geysanaysaa oo maxaa dumarkooda loo geysanaya oo maxaa dhalinyarooda xabsida la gelinaya oo qaar xiniyaha laga garaacaya oo la laynaya oo maxaa suuqyadoodii la gubaya oo maxaa sharaftoodii iyo acraaddoodii lagu tumanaya oo maxaa muxuu ahay diintoodii iyo muqaddasaadkoodii la weeraraya oo maxaa sumcaddii islaamka iyo diintii islaamka dhibaato soo gaadhaysa oo imisaan masaa'ib iyo midhaxun ka guranayna xad iyo xisaab ma laha shareecadeennuna waxay qabtaa shayga sidiisaba haddii sharkiiyo mafsadada ku jiraayay ay mafsadadu badan tahay waa xaaraam wuxuu doonaya ha noqdo sidaas daraaddeed walaalayaal hawayeynaan u noqonina sharcigeenaan u noqonno saan jecelnahayna waa si diinteennuna waa si naftaadu say rabtana waa si diinta rabbina waa si hadday macnuhu tahay sida dadku ku andacoonayaan qaar ka mida dalkii oo la galo gaala gashay baan kaga saaraynaa war dal kaga saari maysaan inay sii degto oy ku sii badato oo isugu qayshato mooyee dal kaga saari maysa habeenkii xalay u tagay Uganda hadda ka hor aad qarxisay 70 iyo dhowr ruux baad ku dishay waxaad tidhi waxaan rabaa inay dalka iiga baxaan ma baxeen mise ciidamo hor lay keeneen haddana waa sidii riwaayadaasi marka riwaayad loo baahan yahay weeye inaysan khaldin nin isagiiba wax gubahaya oo wax halaynaya baa wuxuu iska dhigayaa innamaa naxnu muslixuun horay baa innamaa naxnu muslixuuna ay u badnayd laakiin ilaa maanta inaynu fahmi weyno innamaa naxnu muslixuun sax maaha ifsaadka diin islaam qabto dal markaad degan tihiin oo sidan oo kale u degan tihiin waxaa waajib ah inaad cahdiga ilaalisaan ballantaad ku jirtaan ilaalisaan xadiista nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi quraanka kariimka ah rabbigan tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay haddii ay dad muslimiin oo gaalo ay ishayaan idin yeedhaan oo yidhaahdaan kaalaya noo hiiliyo gaalada nooga hiiliyo gaaladaa ay
nooga hiiliya idin leeyihiinna ballani idinka dhaxayso ha uga hiilinina war muslimiin iyo gaala islaynayso soo inaan gaal muslimka la safta ma gaalkan hadday ballani kaala dhaxayso ballantaa muhiimsan inaad ilaaliso nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xudayfa ibn al-yamaan iyo aabihii oo socda ayaa u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam markay soo baxeen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkii badr ay rabaan inay ka qayb galaan ayay quraysh dhexda ka qabatay markaas waxay yiraahdeen maxamed baad u socotaa war maxamed uma soconay magaalada madiina aan u soconaa may maxamed baad u socotaa ballan ilaahay gala inay madiina aadaysaan oo maxamed aydan garab istaageen dagaalkana la soo galeen ballantii bay galeen nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam waxay rasuul ilaahay oo dhexdaana laga qabtay ballantaasaana galay dagaalka ma kula galaamis waa iska noqonaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam iska laabtay maadaama ballan aad gashay inaydan garab istaagaynin ballantii ilaaliyo ka iska noqda ahdigoodana waa u ilaalinaynaa ilaahayna waa la kaashanaynaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xilligii uu galay heshiiskii quraysh sanadkii 6 ee xudaybiya heshiiska waxa kamid ahaa haddii cid uun reer Makka oo quraysh kamid ah ay soo tagto madiina nabiga ugu timaado inuu dib u celiyo nin Abu Basiir la yiraahdo isagoo socda magaalada Madiina yimid quraysh laba nin bay ka soo daba dirtay maxamed oo ballantan ilnadii ilaaliyo noo soo celin ninkaas waa celiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Basiir labadii nin marka loo dhiibo dhaxda ay sii wadaan ayuu xeeladaystay nin buu safety ka qaatay wuu dilay kii kale carra Madiina ku soo cararay oo naxsan oo argagaxsan nabigu ku carray sallallahu alayhi wasallam Abu Basiir nabigu yimid rasuul ilaahay oo ballantaada adiga waad gudatay iida buu aan qorta ka gooyay kadib laawahan nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ka qabtay kadibna nabigu kalimu yiri kalimadii buu Abu Basiir wuxuu ka fahmay mar labaad hadii la soo raadiyo inuu nabigu dhiibi doono ballantii buu ilaalinayaa Abu Basiir marka waa baxay badda xeebteeda siful bahri buu galay halkaasuu salka dhigtay muslimiintii mustadcafiinta ahaayee Makka joogay Madiina ma soo aadi karaan oo waa la dhiibi Abu Basiir baa marka saldhig u sameeyay meeshii bay isugu tageen ciidan kooxoon sahlanayn baa meesha ku samaysay quraysh bay jidka u galeen safarteeda sahaydeeda nagtay ka saareen quraysh waa wareertay waa koox yar oo dhuumanayso meel loogu soo haaga male markaas ay nabiga dhaariyeen ilaahan kugu dhaarinay iyo nasabkiiyo dhalashada inaga dhaxaysay naga qabay dhan kuwaas haddaad soo xaraysana dib dambe u soo raadsan meyn jidad waxa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ballantii quraysh buu ilaalinaya qurayshna ay la dagaalamaysaa koox muslimiin ay dagaalamayaan asaguna ballan buu kula jiraayo ballantii buu ilaalinaya masaladaasi waa masalada fuqahadu yiraahdaan ballantu way qaybsantaa iyo ahdigu oo muslimka hadii mujtamac muslima uu dawlad ama mujtamac gaala colaya لازم ما هنا مسلمين تردن أي لو ذا علوبان أما دجال كأي كلام عدي بلن كل شرطة مسلمين وين بلنت إلى لسه هذين بلنت إلى لين يدون إنه أهل لسه مركا وين بلنت تورته سعد إنه تورته بلنت مركا يكبر حدا كدي ماشي يدون تأدي كرتا أما هذا بلنت يكون شرا مايا كل ذلك وحي كتصيصه إنه شريعة إنه أقولين تصرفات كنوع عن وكلاء نبينا صلوات ربي والسلام عليه وحياله إلهي كم من قال جروحه كم ذا إنه دبعته أسوتشي ضد مسلمين إمسا دبعته اللي أسوتشي ذي إمسا مصائب كردلا ناس سيداس دراد يدولا ليها وحن إذن ليه هاي وحن نوع صوكلا نينك أحماس يصنع ونعقل جاك كنو نينكي كلون الشريعة ما قبته فإذا كاجت دلنا ميسه وحنا إنه جا إيمان ما يعني إن دبعته إن السوق قدام مويه إن لسكفوا جاي واجب شرعي إلا إنكرنا واجب شرعي هدي لسكود ليه يهدي اللي يقول نولانا يو يهدي لسكو عاية يو يهدي لسكو أفلقات ديني متباس إليا بدم آن وليها ويل يرى الله صوخ الضي أو فعل كفل يو تشنرات سنة يهدى ومهريني وحاسانيك إليا بدم نينك ميشن شوقي كسو عراري dhulkaas hal xoreeyo leeyahay ka soo cararay meeshan u soo cararay war maxaad ugu soo carartay ilmihi keensaday ganacsigu iyaalo hawlaha ka wata war maxaad u soo carartay oo jihaadka uga timid علشان ماشي فتنة كتيرتو نبدي كم تيرتو لقوم النبت كليه تنات كسر عرت محاول سور راسته أمام بنو سور راس
ammaankii ninkii goynayeyna garab baad u tahay waad ku faraxsanta adigiina waad ku soo carartay oo waad tugsanaysaa oo hoostaad kaga jirtaa waxay la mid tahay sidii nin qorax iyo dab intuu ka soo cararay geed weyn oo hoostiisa soo galay kadibna mid geedkii jarahaya u qoslahayo oo gacmaha u garaacay war heedha hooskan waabad ku soo carartay midka goynaya ha goynin ma dhahdi haddii kale maxaad ugu soo carartay waa wax cajiib oo la yaab la waa isliibuu taagan yahay waa mujaahid afku abuurka ka sii daynaya war heedha intanay jirtaa ama isqarxi ama kactag waatan laakiin meeshanaad joogtaa ilmahaagii baad ku haysataa waad soo carartay laguma karayo noqon lagu kari maayo intiina waxaad doonaysaa in la burburiyo la jabiyo waad judbaysantahay waad xamaasaysan tahay amoon sharci iyo caqli iyo xikmad midna fiirin tanaaqudka noloshaada keliyaad iska hor imaanaysa isjabinaysa ruux noocaasoo kale ah marka ummad arrinteeda lama weydiiyo isagii baan tala haynin oo noloshiisiibaa isburinaysa oo dhaqankiisa iyo ficilkiisaa isburinaya laftiisa keliya wey ka noocaasoo kale ah marka uma baahna caqli iyo xikmad in laga raadiyo iyo cilmi toona دين إلا ويدي وركذا إسكداي صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك